وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني، لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني، بأنك دائما مني. أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر، جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري. أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر، جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري. وإخوان معادننا نجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايدين سلامي ولا لهيga qaaliga ah qiimaha badan sharafta badan dunida daafaheeda meel walba aad joogtiin. waa walaashii Maryan Ruun channelka anaga daawanaysaana waa Maryan Ruun official. waxaan idin leeyahay soo dhawaada haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo channelkayga aad soo booqatid subscribe dheh, gambaleelkan on ka dhiga si oo kuu soo gaaro wax walba aan soo geliyo. asxaabta hore ila joogtayna waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin daawashadiina iyo ku xirnaanta channelka. marka waxaan idin leeyahay asxaabe maanta waxaa idin wadaa cabitaan aad u qiimo badan idin wadaa maasha Allah. aan ka sameeyay qaro iyo liin dhanaan iyo nacnac aan ka sameeyay. marka waa kana qarihii xabad qaro ahaay waa kala soo jeexay. hadda jeex aan shiidanayna insha Allah. marka hadeertaan waxaan soo diyaarsaday weelkii aan ku jarjari lahaay qaraha. marka waxaan ku bixinayaa qaando. marka jeexaas dhan waxaan qaraha dhan aan kasoo dhameynayaa qobka. marka meeshiisaan ku reebayaa oo qaraha jeex dhan waaye. hadda waxaan soo qaaday qaandadaasaan kusoo bixbixinayaa kusoo fajinayaa. marka waxaan ka sameysanaynaa insha Allah cabitaan aad u qurux badan u qiimo badan maasha Allah. marka cabitaankii hadda qarihii aan soo hoolay waa soo fujiyay. marka hadeertaan waa kasoo dhameeyay qolofkii. marka cabitaanka markaan soo dhameeyo inta igu filan oo sokor aan ku darsanayaa insha Allah. marka hadda qalaadadii aan soo diyaariyay waxaan ku shubayaa qarihii aan soo hoolay ama aan soo fujiyay. qaraha markaan aan ku shubo hadda qalaadada aan ku shubo waxaan ku danayaa qiyaasta sokor adiga inta kuugu filan. haddii aad jeceshahay macaan, haddii aad jeceshahay xoogaa dhexdhexaad, marka qiyaastaada ku darsanaysaa. hadda cabitaankii waa soo shiiday qarihii waa soo miirayaa insha Allah. miirihii aan kusoo shubay. marka hadeertaan waxaan kasoo miirayaa qashinkii mirihii wixii aan kasoo miirayaa insha Allah. kadibna waa ila arkeysin wixii aan kala ku dardarayo. hadda waxaan soo diyaarsaday garaafihii oo cabitaankii aan soo miiray aan ku shubay. marka hadeertaan waxaan ku darayaa waxyaabihii kale. hadda qarihii aan soo shiiday waxaan kusoo shiiday sokortiisa. hadeertaan waxaan ku darayaa barafkii aan kusoo darayaa. marka hore baraf jajab aan kusoo darayaa aan soo jijibiyay. marka barafkan qiyaastaada ku darsanaysaa. haddii qabow aad jeceshahay, haddii dhexdhexaad aad jeceshahay, marka adeeg kugu xiran tahay qiyaasta. marka xoogaa aan kusoo daray. marka waxaan kusoo miirayaa liin dhanaan, jeex liin dhanaan aan kusoo miirayaa. adi xabad waa ku miiri kartaa marka dhadhanka sida adi aa u jeceshahay ku xirantahay. marka hadda jeex liin dhanaan aan kusoo miiray. marka hal xaba liin oo si yaryariis aan soo jarjaray oo mirihii aan kasoo bibixiyana hadeertaan waa kusoo shubay. waxaan kaloo kusoo darayaa waxa kale hadda aan kusoo darayna waa nacnac caleenta nacnaca la dhaho. marka aan kusoo daray iyo liin dhanaantii. marka waxaan kusoo darayaa haddana maxaa la dhahayay waxaan kusoo daray hadda liintii iyo waxaan kusoo daray iyo waxaan kusoo daray liin aan soo jarjaray iyo waxaan kusoo daray nacnaci caleenta nacnac aan kusoo daray. marka hadeertaan waxaan soo diyaarsaday bakeerigii galaaskii ama bakeerigii oo cabitaanka. marka baraf jajaban aan kusoo shubay. haddana waxaan kusoo darayaa qaraha oo si yaryariis aan soo jarjaray oo mirihii aan kasoo bixbixiyay aan galaaska ku shubay. haddana cabitaankii aan ku darayaa. marka ama xoogaa oo qarihii oo markaas miraha ka bibixisa oo si yar ah soo jarjartay haddana garaafada ama galaaska ku darsanaysaa. qofkii marka cabitaanka uu cabaayo liintii oo jarjaran iyo qarihii oo si yaryariis loo jarjaray haddoo rabo qofka qaando ku cabi karaa.
haddii kale afki marka uu cabaaye waxaa afka u galaayo maxaa la dhahay qarihiyo jabjab marka waxaan ku dhahay maasha Allah decoration aad u qurux badan waaye haddii markaas aad rabinna waa ka dhaafi kartaa laakiin liinta iyo qaraha maasha Allah aad u macaan badan yahay aaduna u fiican yahay marka cabitaankana maanta idinkuugu talagalay haddana caleentii oo nacnaca aan decoration ahaan ama sharaxaad ahaan aan bakeeriga afka ugu soo saaray waa ujeedin sida quruxda badan oo ugu soo baxay marka waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wanaagsan insha Allah sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh